السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتك وحران سريعات ميل والبود عالم كأد كجوكتان يحل والبود يدين تحيبا وقتك هيدين وعناضه وياهنا هيدين سبادوه ولكن عبد الوهاب ويد الله ما ننكري مغال هورله aad baad ugu mahadsantihiin kusoo dhawaada channelka aad baad ugu mahadsantihiin sida aad u garab taagantihiin ama aad u dhiirigelisaan oo aad inoogu xirantiin inta waan idinkaga mahadcelinayaa fadlan haddii aad ku cusub tahay oo ay tahay channelka marka kugu horeysay aad la kulantana subscribe saar kambalelkana furo si aad mar walba u noqoto daawadaha ugu horeeyo ama ka sheekeeyaha aan looga sheekeen haddii aad naga mid ahayna aad baad ugu mahadsantihiin kamid ahaanshihiina waxaan idin leeyahay sharaf iyo ciji ku noolaada meel walba caalamka aad ka joogtaan halkan waa channel weynihii sariicaad maanta iyo social media marka la maxayala waxa yaala fanaankeena weyn Ilka Casaqays ayay waxa ay ku soo qabteen ama ay leeyihiinba xaajiyad cusub ayaa soo socoto watii saddexaad ay leeyihiin oo wadaxaar ayaa socdo ay leeyihiin anigu markii aan arkay ama muuqaalka si degan hadii aad u fiirsato waxa ku soo bixi doona wax walba oo xaqaa'iq ah laakiin sababta ma fahmin sababta markaasi ay u soo qaateen hadalkan ama ay ugu maleeyeen in ay Ilka Casaqays xaajiyada saddexaad oo wadada uu soo galinayo anu ma fahmin adu hadaa fahamtana wadna la fahmi doontaa oo xagga commentiga ayaan ku wada faaqidi doonaa balse waxaan doonayaa marka ugu horeysa muuqaalka kadibna waxyaabo badan aan idinkaga hayo xagga dambe ay noo ahaadaan bal isoo raaco daawasho wacan I'm so happy because I'm at my brother wakana yo that is me laftiga ana waa kan والله اسكت ولي لفتيكينا لاندار ويرجع عوش قاني دير كدستان تيجي معانا لما متسكر كقطع مرير كدبته يو غير فوكس تيك توك of course yes حتى اسكو كان نبي ما شاء الله قروح هكا عوش ما شاء الله it was beautiful yes كازو جونين والسلام يا وغاس تيم كازو تو سيسي كان مثلا maanta badan idinka hogaaminayna sida aad soo wada aragteen muuqaalkani gabadha waxa uu sheegay in abtigii uu dhalay oo rumaad inuu yahay ayaan u maleynayaa wax kasta oo ay ahaataba muuqaalka gabi ahaanba hadii aad daawato kaagama soo baxayaan wax aanan ahayn in ay waqti qurux badan iska wada qaadanayaan meeshana ay tahay meeshii habeenkii xafladda amaba showgii isaga iyo Sharma inuu ahaa wax shaki ah oo kaaga jiro ama kaaga gali karo ma jirto isla habeenkaasi waxaynu ogeyn in xaajiyadiisa amaba Nicima Joker ay meesha joogtay waqtigan uu saamaxaynin meel ka baxsan wadankana may ahayn oo waxaanu arki karaynay xitaa iyadoo maslaxa ugu soo fuushay oo laabta u saaray kadibna uu dhaweeyay ilaa maslaxa ay dhinac kale kaga baxdo hadii uu markaasi damac kale iyo dareen kale uu jiro ama uu maleyn karo in ay wax jiraan xitaa way adkaan lahayd in ay xaajiyadiisa uu soo kaxeeyo balse social media ayaa waxa uu iska noqday iminka hadii aad qosasho xitaa ama aad qof adoo la qoslay lagu arko markiiba waxa lagu soo dhigayaa in aad qofkaasi wax idinka dhaxayaan ama aad jecel wadaag aad tihiin ama ay jiraan dareemo kale oo hoose oo aysan dadka markaasi aysan arkeenin waxa ay kaaga wanaagsan yihiin ayay macnaheedu ku sheegayaan qalbigaaga wixii ku jiro oo aad adigu ogeyn ayay markaasi waxa ay ku leeyihiin anaga ayaa kaaga ogaan badan anaga ayaana ku sheegayno waxa qalbigaaga ku jiro oo aadan adiga ogeyn si kastoo ay noqotaba laakiin waxa loo baahan yahay hadii xitaa wax aad sheegaysid waxaynaad cadeen u haysan kartid ama proof keeni kartid oo qofkani ku cadeyn karo sheekadaasi walow aysan qurux badnayn xitaa hadii aad cadeen hesho in guri dhan oo qoys Soomaali ah burburkiisa adiga uu farxad ku noqdo sidaynu ognahay waxa jirtay xaajiyad kale oo markaasi lagu sheegay in Ilka Casaqays ay xaajiyadiisa ay tahay laakiin si cad ayuu banaanka hadalkaasi u yimid kadib shuxshuux hoose oo ay social media keeneen dadka kadib waxa la helay cadeemo ah inay dhab tahay oo waa uu sheegay ilaa iyo mar iyo laba iyo saddexna waa uu ku celceliyay in Europe meel ka mid ah ay ahayd ayaana jeclahay oo xaajiyadiisa kale ay joogtay walow taasi xitaa markaasi anigu shaki igaga jiray sababtoo ah ma arag kadib social media laguma arag
xaajadaasi oo dib u soo xogatay ama u soo curutay oo aan aragno may jirin oo maalintaasi iyo waqtigaasi ayaa noogu dambeysay Ilka Xasan inta wixii ka dambeeyay waxa uu ku sugnaa dalka Mareykanka oo ilaa maanta oo ku sugnaa carqalad walbo oo faamilada loo geysanayo waa faamilo aad u kooban faamiladaasina haddii aad ogtihiin iyo haddii kalaba si fiican uu dhagaha igu fura faamiladaasi waa faamilada ugu fahamsan ama mar ahaantaasi social media ku leh saaxa fiican amaba ay yani waqti fiican ku qaato social media oo social media yani aad looga dambeeyo waa faamilada ugu badan ee la weeraro bal si fiican igu fiiriyo waynu ognahay boqorada isteelka ninkeeda way kamid yihiin waynu ognahay Hodan Cabdiraxmaan ninkeeda way kamid yihiin Mursal waynu ognahay Naciimo Joker iyo waaba hogaanka dadka u hayo horyaalka been abuurka iyo markaas xaasidnimada oo loo geysto dadka lamaanaha ah waa dadka ugu horeeya kaalimaha ugu horeeya ay ku jiraan hadii aysan ku ahayna laba inay noqdaan waa xaqiiq balse maxay tahay faa'iidada marka dadkani ugu jirto waxa ay tahay waxa ay doonayaan ama ay ka helaan in ay sameeyaan waxyaabo qofka runtii uu ka gubto kadibna uu caayo hadii uu doonana guriga intay qalalaasa galiyaan foodo galiyaan kadibna lagu kala faataxisto oo halkaas lagu kala baxo waa hadafyada ugu waaweyn ay leeyihiin mar walbana waa idin sheega ku darsada wax dan ah ay ka leeyihiin male labadaas qofood qof kamid ah xitaa hadee rabaan juhdigaanay bagaleen aan niraano mar rabaan danka ma lahan mar doonayaan inay isfuraan waxay ka arkaan kaliya inay ku farxad gelinayaan naftooda bas wax kale ee dan ay ka leeyihiin ma jirto waa waxyaabaha ugu waaweyn laakiin waxa loo baahan yahay lamaanayaasha social media iyaga jecelaystay inay soo galaan waqtigooda ku qaataan waayahooda ku qaataan waxa loo baahan yahay in ay markaasi adkaysigeedana lahaadaan dulqaad inay u yeeshaan hadallada uga imaanayo dadka markaasi iyaga social media ku soo weerarayo taaniya shay aad baa ugu mahad celinaya waan ku faraxsanahay walaalkan Ilka Xasan Qays in talooyinkii iyo waanooyinkii aan siinay oo runtii uu ka miro dhaliyay tusaale waxa ka wadaa hayba degdegin social media gaar ahaan TikTok inuu ku yaraado sida aynu ognahayna waa uu ku yaraaday bal dib u xisaabtama oo dib naftiina xisaab u galiya maalmihii oo social media uu ku badnaa waxay ahayd maalmihii ugu weerarka badnaa maalmihii ugu qalaasada badnaa maalmihii ugu badnaa Naciimo Joker social media lagu weerarayo oo iyada iyo isaga xitaa ay iskaga hor yimaadeen isagoo kaliya ku sugan lagu dacweeyay kadibna ay runtii xaajadooda meesha ay gaartaan wada ogeen waa maalmihii social media oo Ilka Xasan ku soo batay hadda marka uu ka yaraado weerarka waa uu yaraado maanta tan waxa soo kiciyay muuqaalkani la helay iyo waxyaabahaas soo kiciyeen laakiin waxyaabahaas iska been abuur waana wada ogtiin reer sariicad waana fahmi kartaan gabadhaanina wax dareen iyo duca oo jiray ama muuqaalkan ka dareemi kareynana malahan hala daay ayaan leenahay hadii aynu nahay team sariicad sidaad u aragtaan ama idinla tahay idinkana waadna la wadaagi doontaan video la gareysina share garee oo asxaabada gaarsiiya inta aan muuqaalkani mid xigo ama ka duwan ku kulmi doono waxaan idinkaga sii tagay dhamaantiinba nabaddiino